waxaanu idinku nimi marka hore madaxdii dawladda qaybo ka mid ah oo wasiirka arrimaha gudaha hogaaminaya baa halkan maanta maraya iyo madax kaloo kala duwan ciidamada qaranka geesiyaasha dalka ee ummadda qaranka difaacaya inaanu dareenkooda la soo qaybsanno duruufta la soo qaybsanno goobtay joogaan iyo geedkay fadhiyaan aanu la soo fadhiisanno qodobka labaad waxaanu aad iyo aad idinka hambalyaynaynaa sidii geesinimada lahayd ee duulaankii dhowrka aag ahaa ee jimcihii halkan laydinku soo duulay goobtan galgal iyo shangeed idinka oo ciidanka qaranka ah iyo ciidamada madaniga ahba sidaa isaga difaacdeen ee aa u edbiseen duulaankii laydinku soo qaaday ee casharka ugu dhigteen aad baanu idinku hambalyaynaynaa waxaa kaloo aanu idinku nimi oo aad ku bushaaraysataan in duruuf kasta oo aad ku jirtaan aanu idinla qaybsanayno oo qaranku aan wax alla wuxuu idinkala haraya aani jirin taana qorshaha ku darsanaysaan ama madaxweyne oo aanu kaga wakiilnay ha ahaado ama madaxa kale ka hooseysa ha ahaado ama shacbigeenna oo dhan ha ahaado maanta dalka gees ilaa gees dalkeenna iyo shacabkeennu wuxuu diyaar u yahay inuu idiin wada yimaado iskiin garab taago dowlad ahaan iyo shacab ahaanna inaanu duruuftaa idinla kala mid nahay oo naf iyo maal inana idinla qaybsanayno innagoo madaxdiinniya baanu idinku nimiyana inaanu idiin sheego qodobka iigu dambeeyaa waxaa weeye maalin dhoweyto niman odayaala baa ka hadlay buuhoodle had iyo jeer arrinka wuxuu noqday qaylaa gar dhoweyso waxaa nimankaa odayaashaee garaadada waxay dhahdeen waana lagu soo duulay ummadda iyo islaamkaanu maqashinayna in lagu soo duulay halkan dagaalku ka dhacay sow galgal maaha sow maaha halkii dullaanku ka dhacay sow halkaad deganeedeen maaha dagaalku ma buuhood buu ka dhacay maan halka ka dhicin shangeed miyaanay ahayn halkan warlagu dhowe aynu garanayna ee 2 bil iyo bar ka hor ciidanka cabdimadoobe iyo ciidanka garaad soofaha hadlayay ciidankiisa soo dejiyay ee sandaqadaha ka dhisay miyaan ahayn bil iyo bar ka hor labadaa meelood miyaanu dagaalku ka dhicin waddada qorlugud iyo cooda la-agteeda miyaanay ahayn duulaan intay soo duuleen haddana adduunyada inay yidhaahdaan waana lagu soo duulay waa gardarro labaad waa isdifaacaysaan qarankana waa difaacaysaan wixii far idinku soo taagana 5 baa ku taagaysa horaa dee loo yidhi oo waxaa ismacaashsiisku dadka waa dilaa inamada shangeed maalintii dhowto ka dagaalamayay ee shangeed bil iyo bar ka hor ay xoolu daaqaya inay reer miyigii iyo dadkii lagu soo laayay ee dadka xanuunsanaya la dilay ee gaadaa lagu dilay ee ummadda waayeel iyo dhaqan iyo ciidanba uu ka dul qaatay ee haddana laleeyahay waana lagu soo duulay waxaylata waa isyaaliyaalkaana sidii maalintii dhoweyto iyo si la mida iyo si ka kulul ayaynu uga jawaabaynaa idinku ciidan iyo cudud baa noogu toogi waxaan idinku soo gebagabaynayaa waxa weeyaan insha allahu waa guulaysanaynaa ilaa iyo maalintii laascaanood waa layna gardarraysanayay idinkaa joogay laascaanood waxaa ahaydeen dad dhibirsan oo ciidan aan dhib badnayn waa ogeedeen faqash bayna haysan jirtay magaalooyinkan baa la gubi jiray waa laynala dagaalami jiray ciidan noocaasa baa dhulka haysan jiray oo dawladu sheegan jiray idinku waxaa ahaydeen ciidan dadka la saaxiiba oo la walaala oo nafta la hura oo roodhida la kala jeexda ciidankii huwantaa is wata ee wasiir maxamedka ay sheeganayay baa ku soo duulay cadownimo aan dunida ka jirin ayaa la abuuray dad aad iyo aad u sharaf laba hayde dad dadka dhibo maydun ahayn dad dadka la walaalaaba hayde qayle iyo waa isxoraynaynaa iyo ka kacaayun baa laynagula soo dhex dhacayoo waxaa is watay iyo argagixisay iyo huwan iyo beliya baas baa soo duushay iminkana waxaa weeye
meel kasta oo dalkeenna iyo ka mid yahay qarankeenna waynu gaadhaynaa xuduudaheeda waynu gaadhaynaa difaac iyo wax iska celin u diyaar garooba dawladda iyo shicibna waxaa ku tala gashaan in barbarkiina la taagan yahay oo nafta iyo maalka iyo hantida iyo awoodaba la idin dul dhigi doono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu